Bismillahirrahmanirrahim. Anigoo ah Engineer Liban Ala Abdixaafid. Waxaynu maanta mar labaad duubi doonaa ama sii wadi doonaa casharkeenii labaad ee ku saabsanaa sida loo isticmaalo visualstudio.net. Maanta waxaan baran doonaa qayb ka mid ah toolboxka kuwaas oo lagu magacaabo common controls. Waxaynu qaadan doonaa maanta oo casharkeenii labaad ku saabsan yahay common controlska ilaa adigu 6 mid ayaynu ka qaadan doonaa insha Allah. Inta labaadna waxaan raacin doonaa casharka saddexaad. Waxaynu isla eegaynaa siday u shaqeeyaan buttonka, text boxka, labelka, check boxka, group boxka, calendarka, common boxka, checklistiga, date time beakerka, link labelka iyo waliba list box sida ay u shaqeeyaan ayaynu isla eegi doonaa. Waxaynu ku bilaabi doonaa button iyo text box iyo label si ay u shaqeeyaan iyo xiriirka ka dhaxayn kara haday inay wada shaqeeyaan iyo inay bal kili u shaqeeyaan. Okay. Waxaynu soo kicinaynaa courskii VB-ga ahaa ama programkii VB-ga ahaa. Waxaynu oranaynaa new project. Waayo maanta waa lesson 2. Waxaynu ka dhigaynaa lesson 2 VB.net basic. Okay, inta ayaan niri locationka horun baynu geenayaa. Waxaynu ku xijin doonaa bal sida aanu isticmaali lahayn button iyo text box iyo label. Okay. Buttonka keligii ma shaqeyn karaa? Text boxku se keligii ma shaqeyn karaa? Labelku se keligii ma shaqeyn karaa? Ha, waayo keligood way shaqeyn karaan. Waxa ka shaqeysiinaya waxa weeyaan code mid walba goonidiisa loo gelin karaa. Bal aynu eegno text boxka ama buttonka si uu keligii u shaqeyn karo. Waa kan buttonku hal button kaliya hadii soo qaadno waa kan button 1 magaca ka bedel. Shan kale shalay soo aragnay waxaan oran karnaa run. Okay. Magaciisa wuxuu noqday run. Hadaba sabab uu shaqeyn karaa waxaynu amar ku siin karnaa inuu ka bedelo formka colorka oo seebinu amri karnaa asa koor ahaan waxaan ku amri karnaa inaynu raahno double click si buttonka dan waxaad qortaa form 1 dot back color wuxuu ku lamid yahay color or dot border blue color dot border blue. Okay. And form 1 back color. Okay, error wuxuu ka yimid form 1 waxaan raacinaa me dot back color. Okay. Kana ka saar dot kana ka saar waxaad tiraahdaa me dot back color. Me dot back color wuxuu ku lamid yahay border blue. Okay, bal aynu eegno. Waanu rangaraynay. Hadaynu rangarayno waa in uu midabkan iska dhigaa border blue. Run. Okay, buttonkii keligii uu shaqeeyay. Ma shaqeyn karaa text boxku keligii? Aynu eegno. Okay. Text box halkan ka soo qaad. Halkan keen waa kan hal xabo text box waa kan. Inagoonan koorka ku xidhin buttonka keligii wax isku soo daawici karaa ama keligii wax isku qori karaa. Ha, wax isku qoriyaa waa kan formka double click C. Haddana waxaan amraynaa formku inuu wax ku qoro text boxka. Okay, waxaan oranaynaa text box 1 dot text wuxuu ku lamid yahay welcome. Okay. Hadaynu formka rangarayno automatically waa inuu text ku soo baxaa wuxuu ku welcome text boxku inuu dhahaa welcome halka cad
waa inay noo soo baxdaa welcome. Okay, waxaa inoo soo baxay welcome. waxaynu eegaynaa bal haddaynu rangareyna haddana midabkii ma bedelmaya. haa, midabkiina wuu bedelmay. Okay, waayahay. iminka waxaynu isticmaalnay text box iyo button. see baynu labelka u isticmaali karnaa? waxaynu labelka u isticmaali karnaa isagana waa kan. hal label soo qaado, halkan soo dhig. waa kan labelkii wakaas. labelka waxaan ku qoranaa show result. bal waxaasna inuu ina tuso, waxaasna fartiisan yar weyneynaynaa si hadhow tusi weyn lagu soo baxdo. Okay, waa kan. bal isna formkiina ka soo maraynaa. formka double click c waxaad tiraahdaa label 1 dot text uu kula mid yahay. waxaad ii soo qortaa isagana soo dhawow. Okay, markaynu rangareyno halkan waynu noo saaraa welcome oo English ah, halkan waynu noo saaraa Somali ah soo dhawow. Okay, waynu rangareynay si automatically wuxuu inoo soo saaray welcome soo dhawow. labelkii wuxuu ina tusay soo dhawow, welcome na wuu inoo soo saaray. Okay, waynu rangareynay rantii iyaduna waxay naga bedeshay midabkii. halkaa waxaynu kaga shaqaysiinay ama aynu baranay sida loo isticmaalo buttonka iyo text boxka iyo labelka. Okay, waxay noogu xigi doonaa check box iyo group box. halkaa inoogu daa intoodaas ay noogu daa kor noogu yar qaad saddexdaaba. kow marka hore horta inaynu meesha group box keenaa. Okay, group box keenu raadino. group box halkan ku jira, container kan ku jira. group box bay soo qaadanay. waa kan group box ka magaca inoogu yar bedelba. textigii tag waxaad ku qortaa group waxaad ku qortaa group box example. Okay, midabkiisana ka bedel, back colorkiisa tag, waxaad tiraahdaa cadaan ka dhig. Okay, waa kan. waxaan soo dooranay group box ay ku qoran tahay group box example. waxaynu hadaba dhex keeni doonaa check boxyo ku dhex jira isaga oo aynu doonayno inuu groupka inoo dhex galaan si aynu hadhow ugu doorano kali. Okay, check box 1 waa kan, check box 2 waa kan, check box 3 na waa ka. Okay, saddexda check box waa inaynu ka shaqaysiinaa. waxayna relationship la yeelan doonaan oo aan ka xuraynaa button oo shaqadu ay ka dhacaysaa. waa kan buttonka halkan inoo soo dhig, weynee, isna magaca ka bedel, isna waxaad ku qortaa show result. Okay, isna show result baynu ku qornay, magaciisa inoo yar bedel hadda, inoo yar weynee fartiisana. Okay, show result waa kan. haddaba waxaynu doonaynaa marka aynu kuwan click gareyno aynu raahno show result tigana tus inuu automatically waxa ku jira check boxka ina tuso inagoonan ka arki karnin halkan hadda. waayo imika markaan saa u galno waa kan check boxki waa kan hadaynu click siino show result inuu ma soo saarayo, ma arki karno. laakiin waxa amraya code kana soo saaraya daatada ku sii dhex jirta check boxka. Okay, waayahay. double click c buttonka show result ay noogu qorneyd waxaynu ku qoraynaa code ah if hadii check box 1 uu kula mid yahay dot check then hadaba maxaa dhacaya ii soo saar message box la dhaho
message box dot show la dhaho check box 1 check box 1 okay qowskiirna inaga soo xidh okay imika waxaanu haysanaa amar ah baynu siinay hadii buttonka la kili gareeyo oo hadii marka hore check boxka la doorto buttonkana la kili gareeyo waxaad ii soo saartaa message box la dhaho check box 1 okay waa kan aynu rangareyno waxaanu rangareynay check box 1 dan waxaanu nidhi show result waxay noo soo baxay message box la dhaho check box 1 haye waxaynu ka xijin doonaa bal in check box 2 gani imika waxba inoo soo baxayaan isagana uu inoo soo saaro check box 2 okay waa kan isagana double click ku noqo halkii waxaad qortaa if check box 2 dot check it ay kula mid tahay then ay kula mid tahay isoo saar message box la dhaho dot show qowskii haye laba dhibcood waxaad soo saartaa intan inoo soo koobiya hada waxaad tiraahdaa waa kan waxaad tustaa check box 2 labadii dhibcood ku xidh okay waa kan check box 2 imika mar labaad waxaan sameynay inuu ina tuso check box 2 waa kan check box 2 result okay inaga cancel check box 3 inta inoo soo koobiyay if ila end if ka okay intan ku shub halkan ku bast garee check box 3 ka dhig halkan waxa tira message box check box 3 tus okay waa kan koodka waxaan sii raacinaa hadii aan buttonka ana waxba dooran aan kili gareeyo wax amara maxaan u haystaa waxaan amar uga dhiganaa ls hadii kalena dheh ls hadii kalena hadii kale waxaad tiraahdaa okay halkan in def dheh صح ls hadii kale waxaad tiraahdaa message box isoo saar dot show la dhaho message box isoo saar la dhaho no select check box wax check box ah maadan select gareyn okay waa kan formkeenii lesson 2 ku saabsanaa already intan midabkii uu ka bedelay welcome uu inoo soo saaray soo dhawow uu inoo soo saaray check box 2 waa kan check box 1 markaynu kili gareeno show result waxa inoo soo baxaya check box 2 1 okay hadday saan waxa inoo soo baxay no select waayo waxna ma select gareen waana kili gareys oo kaas no select check box okay kan baynu kili gareenay click uu inoo soo baxay error ba halka ka jira marka errorkaas wax weeyaan hadii ls if ls oo hadii kala weeyaan hadii if okay waxaan niri select okay waa sax okay check box 2 check box 3 okaas okay
no select okay marka inta halka waxa ku shaqeeyay checkboxkii iyo waliba buttonkii labelkii iyo groupkii bal waxaan sameeynaa button yar oo kale oo ah intaynu halka ka kasan lahayn inaynu halkan ka kasan laba okay waa kan buttonkii magaca ka bedel waxaad u bixisaa close okay buttonka double click inoo sii kaliya waxaad ku qortaaba end igaba dhamee projectgaba okay waa kan waxaanu naran halka inoo ka kansali karnaa waxaynu eegnaa bal inuu buttonkeenu inoo shaqeeyo la dhaho close okay buttonkii close ahna inoo shaqeeyay waxaynu ku dari doonaa intaas group boxka iyo calendarka balse u shaqeeyaan iyaguna okay comma boxku waa kan isagu wuxuu u shaqeynayaa waa wax la soo gelinayo xaggan waxaad aadaysaa property-ga then waxaad soo dooranaysaa item meesha ku qoranta items iyo collection halka yar baad furaysaa then waxaad ku soo qoraysaa waxa alaala waxaad doonto ku soo qori kartaa oo ah hadda waxaan ugu qortaaba waxaad ugu qortaa check box 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay waa kan ilaa 9 baan gelinay waynu rangareynay bal markiinu rangareynay waa kan say wax dooran karnaa waa kan check box 1 baan dooran karnaa keligii baa inoo joogaya check box 3 check box 4 baan dooran karnaa check box 5 baan dooran karnaa ama 6 okay comma boxkii isna saas u shaqeynaya oo ah comma box wax laga dhex dooran karo waxaan ku xijin doonaa calendarka soo shaqeeyo waa kan calendarku isaga wax koodh kaama baahna automatically ayuu soo kicinaya waa kan calendarkii waa kaas already February 2019 bisha 14aad wax koodh kaama baahna waxaan ku yar dari doonaa saacad time-ka caadiga ah ee sable u shaqeyso okay waxaan soo dooranaa hal level waxaan ka yar bedelaynaa magaca waxaan u bixinaynaa saacad okay fartiisa ayaan yar weyneynaa si ay saacadu si wacan inoogu muuqato hadhuto 16 ka dhig waa kan saacad okay hadaba saacada waxa dhaqaajinaya ama waxa saacada miirsadeeda tirinaya waxa la dhaho time ama timer okay timerki wuxuu ku jiraa halkan ay ku qoran tahay components waa kan timer okay formka gudihiisa adoo timerka wata ayaad click siinaysaa timerkii ayaad double click siinaysaa kadib waxaad qoraysaa level 2 ayuu kula mid ahaa saacadu dot text waxay kula mid tahay time of day waqtiga maanta okay waanu rangareynay saacad wali saacadeenu waxba iskama bedelin aynu eegno koodhkii markaynu eegnay koodhkeenu ma khaldana laakiin waxaanan enable ahayn timerkiini okay timerkii true bin ka dhignay waxaanu nidhi run saacadeeni waxay u shaqeysay si automatic la tabta ay computerkayga ugu qoran tahay 3:51 am halkaana waxay noogu soo ekaaday calendarkii iyo saacadii cashirkeena xiga waxaynu ka bilaabi doonaa checklistiga date time beakerka iyo link levelka iyo list boxka aad ayaad mahadsantihiin halkaas ayaynu ku joojinaynaa maanta cashirka xigana waynu soo gelin doonaa YouTube channelka waxaan aad ugu baahanahay in lagu xirnaado YouTube channelka aynu soo gelin doonaa casharada aad ayaad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.